بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا ودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Alhuda Secondary School maadada biology-ga fasalada koobaad waxaana la socodsiinaya anigu Cabdiqaadir Cabdilaahi Cali Fiqi. waxaanu ku dhex jirnay chapter-kii shanaad. chapter-ka shanaad oo ka hadlayay qaabka jirka bani'aadamku qaab dhismeedkiisa iyo siduu u shaqeeyo. marka wuxuu isugu jiray qayb anatomy iyo qayb physiology, structure-kii qaab dhismeedkii iyo qayb marka chapter-ka magaciisa guud waxa la human machine. waxaynu bilaabaynaa maanta lesson-kii afraad ama casharkii afraad oo ka hadlaya digestive system-ka ama habdhiska dheefshiidka qaybtiisa koowaad weliba. ugu horreyn introduction-ka ama qaybta hordhaca casharku waxaynu ku sheegi doonaa digestive system-ka maxaa lagu qeexaa iyo molecular-da iyo ashyaada qofku uu qaadanayo ee la dheefshiidayo, qaabka loo burburinayo iyo qaabka ay u dhex marayaan dheef mareenka kadibna dhiigga loogu gudbinayo. marka koobaad waxaynu qeexaynaa digestion waxaan ku qeexaynaa digestion inuu yahay the process oo habka by which kaasoo large complex insoluble organic molecules, marka waa walxaha molecular-da organiga ah ee ka yimi wax nool ee large-ga ah waaweyn, complex-ka kan aan insoluble kuwaasoo aan milmaynin. marka waa walxa waaweyn ama waa molecular waaweyn oo kan oo aan milmaynin ayaa are broken down la burburinayaa. marka hore maxay ahaayeen? waxay large complex and insoluble. waa la burburinaya, maxaa laga dhigayaa to small qaar yaryar insoluble molecules iyo moleculo milmaya. marka hore waxay ahaayeen walxo kan oo aan milmaynin oo waaweyn, marka dambena waxa laga dhigaa walxa yaryar. marka cuntada markaad qaadato afkaaga geliso shaqada ugu horeysa afkaaga ka dhacda ilkuhu maxay sameeyaan? way yaryarayaan. cuntada iyadoo sideeda weyn ma liqdid markiiba, laakiin waa la qooyaa, afka ilkaha ridqa, carabka laalaaba, dabeetana marka dambe iyadoo la jilciyey, la yaryareeyey, la duuduubay ayaa dhuunta la marinaya. marka walxaha jirka bani'aadamka gelaya kuwa waaweyn biyaha kuma milmayaan, sababtaasa marka looga dhigayaa in la yaryareeyo oo soluble laga dhigo, ama dee biyaha marka laga tago dheecaanada kale ee habdhiska dheef mareenku uu soo daayo inay burburiyaan. waxaa mar walba ka saacidaya waqti yarna ay ku qaadanaysaa marka walxihii la burburiyo si mechanical ama si duleed marka loo burburiyo markaasuu fududaanaya. marka waxa lagu leeyahay the large molecules walxaha waaweyn are not usually badanaaba not soluble in water biyaha kuma milmaan, while halka the smaller ones kuwa yaryarna are yacni ay sameeyaan falkaas oo ay biyaha ku milmaan. marka kuwa weyne biyaha kuma milmaan, kuwa yarna biyaha ayay ku milmaan. marka waa sababta keenaysa in digestion-ku uu qaabilsan yahayba in walxaha waaweyn la burburiyo laga dhigo qaar yaryar. waayo the small molecules sidoo kale qodobka sababta loo yaryarinayo waxa weeyaan moleculeskaasi waxa ay maraan gidaarada ayay ka dusi karaan oo waa la nuugi karaa marka la yaryareeyo ee la ridqo ee la burburiyo. the small molecules walxaha yar canvas waxay mari karaan through the epithelial of the alimentary canal. alimentary canal waxa la dheef mareenka, marka epithelialku waa layerka ugu sareeya alimentary canal ama dhuuntan cuntada marayso layerka ugu sareeya ee ka samaysan waxa loo yaqaan epithelial tissue. marka qaybta sare ee surface-ka ugu sareeya cuntadu dhex marayso halkaasay dhaafi karaan markii molecular, laakiin markay waaweyn yihiin ma dhaafi karaan, wayna ku adkaanaysaa. waxaa laga yaabaa xataa haddii ay dhaafaan inay dhaawac u geystaan. the small molecules can pass through waxay dhaafi karaan the epithelial qaybta sare ama layerka sare of the alimentary canal ee dheef mareenka through the walls of the blood vessels through iyagoo dhex maraya ama ka gudbaya the walls of the blood vessels ama xididada dhiigu gidaarada ay leeyihiin and into blood stream kadib marka dambena waxay tegayaan qulqulka dhiigga. markay dheef mareenka ka gudbaan dabeedna xididada dhiigga ay dhaafaan, marka ugu dambeysa qulqulka dhiigga ayay u gudbayaan. xaggana waxaynu kaga hadli doonaa bal walxaha aynu sheegayno ee muxuu hayey la dheefshiidayo la yaryareynayo. marka qaarkood waxaa dhacda walxaha qaarkood in markaad qaadato jidhka saa u qaadato aan lama dheefshiidinba. sababta loo dheefshiidayo waxa weeyaan processka lama mariyo, waxaan loo marinayn marka hore yihiinba walxa yaryar oo intii loogu talagalay dhiigga geli lahayd ayaad marka horeba ku qaadatay, iyagoo markaa yaryar oo dhiigga raaci karaya
ayaad qaadatay, marka waxaa dhacaya kuwa inaan la dheefshiidin deedna toos blood streamka loo raacayo. some food cuntooyinka qaarkood can be absorbed waa la nuugi karaa without digestion iyadoon la dheefshiidin. tusaale maxaa waxaa loo yaqaano maadada ama walaxda loo yaqaano glucose ee carbohydrate-ka ee ku jirta fruitska iyo markaad cunto glucose baa ku jirta. marka glucosekaasi carbohydrateska marka la jijibiyo waa waxa ugu yar ee la gaarsiiyo ama base unitka ay ka samaysan yihiin carbohydratesku inta dhiigga raaci kartaa waa glucoseka. marka glucosekaas ku jira fruitska isagoo uma baahna dheefshiid sababtaa marka hore wuu yaryahayba, marka saasuu dhiigga ku raacaya. marka the glucose in the fruit juiceka ama dheecaanka fruitska ama midhuhu ay leeyihiin glucose ku jirta kurbaas waxay dhaafi kartaa through the walls of the alimentary canal through waxay dhex mari kartaa the walls gidaarada of the alimentary canal ee dheef mareenka and enter kadibna waxay u gudbaysaa marka la nuugo the blood stream qulqulka dhiigga. haddaba wanigan walxi waa la dheefshiidayaa, waa la yaryareynayaa. xagga hore kusoo aragnay walxaha yaryar chemicals baa jira yaryareeya dheefshiida. chemicalska yaryareeya burburiya waxaa loo yaqaanaa enzymes. the chemicals kiimikooyinka which dissolve kuwaasoo mila the food cuntada alcohol waxaa looga yeedhaa enzymes. marka enzymes waa dheecaanada cuntada dheefshiida. marka dheecaanada meelo fara badan baa laga helaa. meesha ugu horeysa laga helay laga soo daayaa waa afka qanjidhadan salivary glandska loo yaqaano ama candhuuf soo daayayaasha ee saliifaha ama candhuufta soo daaya kuwaas ugu horeeya. carbohydrate-ka burburintiisa halkaasay ka bilaabantaa ugu horeysa. xaggan waxaan ku eegi doonaa main partska ugu waaweyn ee uu ka samaysan yahay digestive system. marka digestive systemkii laba group ama laba kooxood oo weyn baynu qaybinaa. waxaynu u qaybinay qayb la dheef mareen oo toos ay cuntadu u dhex marto oo hello organism ah oo cuntada markaa toos ay u dhex marayso, iyo qayb la dhahdo accessory digestive organism oo ah iyagoo caawiyayaal. cuntadu ma dhex marta iyaga laakiin halkan cuntadu ay dhex maraysay ku xidhiidhsan yihiin. marka waxay leeyihin dhuumahaasay markaa ku soo daayaan dhuuntan dheef mareenka deedna iyagu dheecaanay soo daayaan. enzymes bay soo daayeen. enzymeska ay soo daayeen waxay ka qayb qaataan in dheefta halkaa maraysa alimentary canalka maraysa inay burburiyaan. marka two main groupka loo qaybinay mid waxa la alimentary canal. alimentary canalku waa kay tooska cuntada dhex marayso. accessory digestive organismkuna waa kuwa ka caawinaya cuntada halkan maraysa in la burburiyo oo mainly iyagu inta ugu badan waxay soo daayaan enzymes. there waxaa jira two main groups laba qaybood oo weyn of organisms oo xubnaa in the digestive system. labadaas maxay kala noqonaya alimentary canal muxuu ka kooban yahay? alimentary canalku wuxuu ka kooban yahay afkii iyo esophaguska. afku waa mouthka waa gras oral cavity. esophagus waa dhuuntan cas ee hunguriga cuntadu marto. waxaa ku xigay stomach oo calooshii. waxaa kusii xigay small bowel. small bowelku waxaa looga jeedaa waa small intestine ama waa mindhicirkii yaraa. waxaa kusii xiga large bowel. large bowelna waa maxay? waa large intestine. marka bowelka halkaa ku qoran iminka waxaa looga jeedaa intestine. marka small bowelkuna wuxuu noqonayaa small intestine. large bowelkuna wuxuu noqonayaa large intestine. marka alimentary canalku intaas ka kooban yahay. qaybtan accessoryga caawiyayaasha ee labaad iyaduna maxay ka koobantay? qaybta accessoryga waxay ka koobantahay iyaduna accessory digestive organismku wuxuu ka kooban yahay salivary glands waa qanjidhada candhuufta soo daynaya. saliva means waa candhuuf. marka salivary glands qanjidhada candhuufta soo daynaya. waxaa ka mid ah liverka beerkuna markaa isagana waxaa ku dhex yaala waxa la yaqaana gallbladder ama xameeti. marka xameetidaasaa soo daysay waxa la yaqaana bile oo fatska iyo waxa lagu burburiyo. isaguna markaa wuu ku xidhan yahay qaybta alimentary canalka ayuu ku xidhan yahay. markaa toosta cuntada ma dhex marta laakiin wuu caawiyaa. marka accessorygaas waxaa ka mid ah pancreaska oo ah ganaca accessory digestive organismku ku jira isaguna kuwa caawinaya ayuu ka mid yahay. marka laba qaybood oo guud baynu qaybinay ama laba qaybood oo weyn baynu qaybinay digestive systemkii. labada qaybood midna waxaa alimentary canal baa ardayay, midna waxaa digestive accessory digestive organism ama accessory glands. sawirkani la eega. sawirkani alimentary canalka iyo accessory organismka waan kusoo ururiyey. inagu intan muhiimada saarayna waa qaybta halkaa ku taala. alimentary canalku intaasu ka kooban yahay. accessory organismkuna intani ka kooban yahay. marka alimentary canalku wuxuu ka kooban yahay mouthkii oral cavity waa kaas. pharynxkii waa ka halkaas ku yaala magaciisa kale ku qoran. esophaguskii waa kan dhuunta cuntada maraysay.
small intestinekii ama mindhicirkii waa kan oo ka kooban saddexdaa qeybood, qeybta duodenumka 12 loo yaqaano, jejunumka iyo ileumka. large intestinekii mindhicirka weynaa waa kan isaguna qeybahan ka kooban transfer colon, descending colon, ascending colon, cecum, sigmoid colon, rectum, appendix iyo anal canalka. intaas isku koobay intaasaa la isku dhahdaa large intestine. iyo anasty oo ah halkii laga saxaroonayay ama xagga dambe. marka intaas waa canalkii cuntada dhex maraysa. kuwan caawiyayaasha ah waxa ugu horeeya thang, carabka marka afkuu ka mid yahay, oral cavity ka mid yahay, laakiin accessory glands waxa lagu dareemay maadaama fududeynayo oo walaaqayo oo mastication iyo calaalinta ka qayb qaadanayo. salivary glandski oo kuwa halka ku yaala saddexaas loo qaybiyaa, mid waxa la parotid, mid waxa la sublingual, mid waxa la submandibular gland. waxa kamid ah liverkii oo ah beerkii, waxa kamid ah pancreaskii iyo gallbladder. gallbladder markaas wuxuu ku jira mar walba liverka oo bile buu soo daaweynaya. marka alimentary canalka magacadooduna waa kuwa, accessorygina waa kuwa, halkaas adigana ka fahmi doontaa si fiican oo kolka ugu qoray. marka accessory liverka waa ka intang oo ka salivary glands oo naga sheegnay, pancreaska waa ka spleen baa ka spleen marka kuma jirto accessory glands, iyo gallbladder oo waxa yara doogada halka ku yaala ee beerka ku dhex yaala. marka intaa kasoo gudubna waxaan u gudbinay stageska ama marxaladaha uu maro digestive systemku. stageska marxaladaha digestive systemku maro waxa weeyaan cuntada marka ugu horeysa qaadato ilaa iyo marka dabada laga saarayo. marka wuxuu maraa 5 process buu maraa halka ku qoran. 5 process maraya ka ugu horeeya waa digestion baa la yiraahdaa, waa cunto liqid. ka ku xigaana waxa weeyaan digestion oo dheefshiid. marka dheefshiidka wuxuu qaybsanay mid la yiraahdo mechanical iyo mid la yiraahdo chemical. ka mechanicalku waa ka ridqida walaxdii la burburinayo, chemicalkuna waa ka dheecaanka lagu sii marka dheecaankaas burburinayo wax. absorption waa in la nuugo wixii marka la burburiyo la yareeyo. assimilation waa jirka loo qaybiyo. digestion or defecation waxa weeyaan jirka in laga saaro ama la saxaroodo. marka stageskaas maraa sawirka dambe ku arki doonaa. the chemical breakdown burburinta la burburinayo cuntada usually badanaa takes place waxay dhacdaa in stages iyadoo marxalada marayso. these stages marxaladahani take place waxay ka dhacaan in different parts qeybaha kala duwan of the alimentary canal ee diaphragm and they are waxaanay kaliin ingestionkii oofkii ka dhacaya, digestionkii oo qayb ka mid af ka dhacaysa, qayb ka midna qaybna caloosha iyo mindhicirada yar ka baxayso, absorptionkii oo inta ugu badan caloosha uu ka dhaca laakiin inta ugu badan mindhicirka yar buu ka dhacaa, assimilationkiina waa marka la qaybiyo la nuugo ee dhiigga markaa qaybinaya, dhiigga assimilator ah. wixii intaa kasoo hadhay la dheefshiidi waayo muxuu ahaayey aan jirku u baahnayna waxaa loo gudbinaya large intestineka ama mindhicirka weyn, kadibna waxaa lagu sameynayaa digestion ama waa laga saarayaa jirka defecation. marka wuxuu qaybsan yahay ingestion, digestion, assimilation, waxaan jira absorption, assimilation iyo digestion or defecation oo ah jirka in laga saaro. sawirkan aynu tokoyigana what happens to the food that we eat, maxaa ku dhaca? marka koowaad waa maxay? number 1 waa digestion, waa la afka la gelinaya. marka afka la soo digestion waa la dheefshiidaya, waa la nuugaya, assimilation waa la qaybinaya iyo digestion. kan kalena fiirso waa ka digestion afka la geliyay, digestionkii afka qayb ka mid ah ka dhacdo intaas oo dhan waa ka ilaa caloosha halka ka dhacaya. marka digested food cuntadii la dheefshiido wata. cuntada la dheefshiido waxa ku dhacaya absorption, waa la nuugaya. marka la nuugo marka dambe waxa ku dhacaya assimilation number 4 in jirka loo qaybiyo. marka ugu dambeysana waa digestion oo jirka in laga saaro. marka jirka laga saarana marka dambe waxay noqonaysaa feces ama saxaro ay noqonaysaa. inta waxay noo xigaya digestionka qaybihiisa. marka digestionka laba qaybood oo qaybino guud ahaan labada qaybadan digestionka oo qaybinayno waxay kala noqonayaan qayb la yiraahdo dheefshiidka ama dheefshiid cuntada la dheefshiidaya, mid duleed oo mechanical iyo mid chemical. marka ka mechanicalka cuntada waa la ridqaya ilkaha marka la ridqaya, ilkaha garaacida ilkaha lagu garaacayo ayuu noqonaya mechanical digestion. chemical digestion waa iyadoo juice ama dheecaan lagu daray wixii enzymeska uu naqaan lagu dhex daray. marka dareer waxa jira two main types laba qaybood of digestion which are kuwaas oo kala mechanical digestion. kan yaa qabta is done by waxa qabta the cutting and grinding, jaritaanka and grinding iyo ridqida. the cutting and grinding action falka ridqida iyo jaridda of the teeth ilkuhu. marka ilkaha marka cunto saaw cuntada afka soo geliso marka ilkaha waxay sameeyaan mastication, way calaaliyeen, way burburiyeen. way distany break the food cuntada way kala jebisay into small particles qaybo yar bay ka dhigtay that can be swallowed taasoo la liqi karo. marka hore cuntadii weynta afka geliso ma liqi kartid, way waaweyntahay, laakiin markaad yaryareyso si fiican baad u liqi kartaa.
marka falkaas ilkuhu ay sameynayaan baa loo yaqaana mechanical digestion. chemical digestion isaguna waa iyadoo juice ama dheecaan lagu daro. juicekana meelo fara badan baa laga soo daayay kala duwan. kanaas dhan bay waxaa qabta digestive juices dheecaanada wax dheefshiida which come from kuwaasoo ka imanaya the glands qanjidhada that are located kuwaasoo ku yaalan the alimentary canal dheef mareenka. marka dheef mareenkii afkuu ka bilaamayay afka waa laga soo daayaa oo salivary glandski baa ku jira, weliba accessory ha ahaadaan ama external ha ahaadaane. caloosha ka mid a, intestineska ka mid a. marka maxaa ka mid gastric glands qanjidhada caloosha ku yaala ee kuwa enzymeska soo daaya pepsin iyo renin iyo soo daynaya tyrapsin iyo HCl-ka ama hydrochloric acid-ka kuwaasa ka mid. intestinal glandska ka mid a kuwa intestineska ku yaala small intestine-ka markaa iyaguna soo daynaya dheecaanada dheefshiida iyo cuntada, waayo dheefshiidka ugu badan halkaas ka dhaca. libeskii iyo malteskii oo maltosta burburinaya waxaa ka mid a iyo glands iyo qanjidhada that locate outside the alimentary canal iyo kuwa ku yaala outside ama dibadda ka baxsan alimentary canalka. marka wanigani alimentary canalka waa dheef mareenkii. dheef mareenkana wuu soo deynayaa dheecaanada kuwii ka baxsanaa aan sheegnay accessory-na way soo deynayaan. maxaa ka mid a kuwa ka baxsan salivary glandska iyo pancreaska. marka salivary glandska iyo pancreaska iyagu waa maxay? waa external ama outside the alimentary canalka ay ku yaalaan. marka chemical digestion labadaas oo ka qayb qaadanaya enzymeska ama dheecaanada laga soo deynayo alimentary canalka iyo kuwa laga soo deynayo meel ka baxsan alimentary canalka, labaduba ka qayb qaadanayaan. labadaa qaybood baana loo qaybiyaa digestionka. arday cashirkeena maanta halkaasuu inoogu joogayaa. cashirka ku xigana qaybta labaad bayn ku qaadan doonaa ee digestive systemka. marka dadaal fiican iyo in si fiican loo soo akhriyo cashirka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.